waxaan xirnay xalay maqribkii masaajidka xareed yarow guddigii culimmadii jamaacadii masaajidka dhammaan markii ay ka wada hadleen xaaladahan khatarta ee hadda caalamka ku soo korortay xanuunkan aafada ah gaar ahaan waddankeenna Soomaaliya gaar ahaan haddana deegaankeenna Kismaayo arinta iyada ah culeyskeedii markii uu na soo gaaray ayaa waxay jamaacadii go'aansadeen in muddo 2 usbuuc ah masaajidka la xiro arintaas oo sababteeda ay ahayd kadib markii dad bukaanno looga shakiyay xanuunkii calaamadihii lagu tilmaamay waxyaalo ka mid ah leh masaajidka ay ku soo tukadeen iyadoo ay ka horeysay dadaalo fara badan oo masaajidka laga sameeyay in qaybta weysada la xiray in mar walba lagu wacyi gelin jiray jamaacada inay qofkii isku arka calaamad ka mid ah calaamadaha xanuunkaas inuu iska joogo gurigiisa ruqsana uu u haysto inuu gurigiisa uu ku tukado waliba ay maaragtay arrin go'aana ay tahay inuu go'aansado inuu gurigiisa ku tukado arinta iyada marka waxaad moodaa xogaa in dhaga nuglaanshaheedii uu yara adkaaday iyadoo runtii xaaladahaas ay iska jiraan wax cadna ayna jirinin ayaa waxa dhacday walaal jamaacada ka mid ah in uu xanuunkii calaamadihiisa wax ka mid ah isku arkay kadibna inuu iskarantiilay kadibna inuu ku dadaalay inuu dhiig uu iska qaado iyadoo dhiigii xamar loo diray kadibna jawaabtii ay noqotay positive markaas kadib waxaan go'aansanay marka runtii dadka hadda calaamaduhu ay ka muuqdeen ninkii ugu calaamada sahlanaa buu ahaa ninka hadda positive ka noqday inta kalena dadku baaritaan iyo waxba ma ayna teginin marka naftu bini aadamku qiimo ayay leedahay sidaas marka waxaan ku go'aansanay dhamaanteen jamaacadii inaan muddo 2 usbuuc aan hakino tukashadii masaajidka dadku inay guryahooda ku tukadaan wixii dardaaran ana waan siinay culeysada faraha badan ee jirana ilaahay inuu naga qaado ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala masaajidka jamaacada rasuulka kaleey salaatu wasalaam habeenaha kamid ah ayagoo roob da'ayo mu'adinkiisa nabigu wuxuu ku amray in uu ku daro adinkiisa gurihiina ku dugta ala sallu fi buyutikum guriha lagu dugto roob kaliya waay sadarteeda masaajidka jamaacada ku dukanaysi waxaan dhahnay maadaama cudurkan oo jiro si dadka inuu daydaan ka hortag loo sameeyo hal xiro ila amar dambe oo cudurkan bal xaalkiisa oo ilaahay dhinaca noo dhaafsanayo waxaan leenahay masaajidada imaamada kale aan xirin dadka khibrad u lahaa barnaamijkan caafimaadka wal hala dhageysto dantaada ku jirto danta qoyskaada ku jirto danta bulshadaada ku jirto haddii caafimaad jirin wax adduunka kala soconaya jirin wax barasho ahaato ganacsi ha ahaado safar ha ahaadano horumar bulshadeed ha ahaado saadarteed waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed waa koodane dantaada ku jirta raac talaabooyinka takhaatiirta Soomaaliyeed ay ku tilmaamaan waxba dhibaa ku ardayda ku jiraan inaad raacdo saadarteed badbaadada ku jirto